نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي بشرك كوكا دورتايا أي وحي صحابتي ست المامسة ومسلمة يا أنس بن مالك وحي تلمامة يا صحابة النبي محمد دعوين كنبي محمد ومسلمة مركي اللي ويديه قولي قاقا مركو تشوقا وحاقو بدنا ونبي محمد كو دعا يستوى محي وحي دعانا صوص عطي شاكتي أنس بن مالك وحي يساقون ليه يكثر نبي وبدين شري إنه إلى هذا محي يا مقلد أنت أساسية وحاجة هذا تكون من الشيغة عملك وبرية أجرك هالي ميسي هذا أذى كده بجيسه وحدت كرني بيانا ريح حن يماك يا وحدات قدر تقف كاتك وحسين يا بنا ينا وكاد منيس أعماشا وحبدنا برية شران رداءهين مثلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى بإلهين كو إيمانك لغاها اليوم صدقوين كينا هكبرننا بالمن والأذى من قوا من شاغشو قلت شاغشو برجع عينك وانجي وحديسيه برجع عينك سوانجي عينك يالي كوا صوبها انت اساسيه وحاجه هذا تكون من شاغتو عملك وبريه أجرك هالي ميسي فرتيدان ايش شيء دون ما يقارن كرتا دي سلا دقيقه way libdaysa adduunka inuu isku soo dhaweynay dabeetana noloshaba weynaga qariyo ma arki karaysid illa Mercedes-ka iyo mushaharka badan iyo waxa mooyaan wax kale arki karimaysid ولذلك هو تاريخيا تجريجها بلوتارك وحليه قد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون ومدن بلا قصور ذا الجدار وذا الجدار وما في قلب وما وحول قلب جدار كان أن دنكنيو إسقى ماها وحنو جدون دنكنيه جدار كان قداشي سليلة آيات دقنو جعيل كليلا دنكنيا بو مالين كلا الله أركسوه أي هيسود دنكنيا ورأينا معانت معاكم قصة لدي وحول أقل كليلة أي كجرتو كصوبحي كصوبحي الجوزي رحمه الله dadka salaada tukanaya shan buu kala qaado wuxuu yiri qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi buu yiri waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqaadeediyo iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yiri fawaylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun salaada way tukadaan laakiin awqaadeeda xilligii rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilmaha inaad guri uga tagto waxa ka qiimo badan inaad diin uga tagto inaad dhaqaale u samayso waxa uga qiimo badan inaad isaga qof ka dhigto jira oo nool oo muslima hadduu qof muslima noqdo oo naftiisa ku kalsoon meel uu seexdiyo wuxuu cuno isaga raadaysanaya adiga xilka ku saaranay kaama xilka ku saaranay waxa weeyaan falaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa waxay idinku khayr badan kareerkiisa ugu khayr badan buu nabigu dadka badhbaa dabadda ku qurxoon guryaha markay tagaanna bahal ah waa dhib qofka noloshaba isku darsateen iyo carruurtaada dhashay inaad ku kakanaatid dabaddana nin fiicanoo hebel laga yaqaano inaad noqotid wax fiican maaha haddaad rabto bini aadamku inuu warkaaga aqbalana waxa laga yaabaa rag badan inay haayo waan lay maqlin waxaan idinkula dardaarmayaa ilaahay cabsashadiisa ilaahay ka dhowrsigiisa inaad ka dhowrsataan rabbi ayaan idinkula dardaarmayaa mulkuha maa ziwaya lii minha ummaddaydana mulkigeed iyo maamulkeedu wuxuu gaadhi doonaa inta lay tusiyey buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yacni waxa soo socotuu nebigu tilmaamaya wakhti caalamkoo dhan islaam ka taliyo caalamkoo dhan inuu islaam ka taliyo dadka badhbaa waxay u fakerayaan goormuu muslimku xoog badan doonaa cayn markaas xuurata kadib ha seexanin
qur'aan akhriso istighfaarta badi ilaahay subxaanahu wa ta'ala xilligaas wixii la weydiisto waa laga helaa maxaa yeelay waxa isku darsatay iyadoo bil ramadaan suxuur kadib ah iyo iyadoo habeenkii intiisa dambe ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu adoomadiisa leeyahay yaa dambi dhaaf weydiisanayn u dambi dhaafaa yaa ibaryayoon ajiiba ilaahay subxaanahu wa ta'ala bari oo ha seexan oo salaada subaxa ka seexan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ramadaan kuwii ka faa'iideystaa naga yeelo gaasi walaalaha kalmahsan qofka ballanta buuxiya dadkoo dhan baa jecel qofka ballan baajiyahana dadkoo dhan baa neceb shariicadda islaamku waxay ku leedahay ammaano qof la noqo haddaad ammaano xaafid noqoto dadkoo dhan baa ku jeclaani haddaad laakiin aad noqoto khaayin hooyada ayaa aabbahaa wase kaa ilaalinayaan wanaaggay shariicadda islaamku kugu yeedhayso waa waxa dadnimada kaaga dhigaya dadka kugu dhex daraya qiyam akhlaaqda wanaagsan ayaa qof kaa dhigaysee qabiil مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد أيها الأحبة في الله ميل والبا جوجتان إلهي تبارك وتعالى إذن كنا بديالو waxaan doonayaa inaan idin iclaamiyo idinkuna tahniyadeeyo dhalashada bishii Ramadaan oo runtii ay sugnaatay aragtideedu caalamiyan meelo fara badan wadamada qaarkoodna maanta soddon buuxay u ahayd oo caawa si toosayba Ramadaankii u bilaabeen qofka fursadan qaaliga dayaca waqtigiisa ku lumiya ciyaar maruu turub ciyaaro maruu laadhu ciyaaro maruu kubad ciyaaro waqtigiisa ku lumiya maararrow aan macno lahayn maruu hees dhegaysto maruu kubad daawado iyo maruu sheeko ku soo jeedo waqtigii ay ahayd inuu seexdo suu cibaado ugu diyaar garoobo qofka waqtigiisa ku dayaca كلمتان سبحان الله وبحمده إذا كربدا لغو فايدة أيا كانت كربكو هيستو دباطها النغطو وجسدية جريهان كو هيستا أما هالنغطو مد الله بهان كو هيستو نفسية psychologically problem كو هيستا وحملي كاريلادو قادي كاريلادي وحلقا قبت بادا إنا التصبيح دادا باديسيت لهي النبي محمد وحفر ياينو صبرو marka labaadna waxa that's the real world noloshu waa taa qofka bini'aadamka marka dawaaweynaya reer galbeedku ah waxa layna baray oo nabigu ina baray kaleey salaatu wasalaam salaada markaynu tukanno waxa koowaad aynu qabanaa waa maxay nabi maxamed markuu salaamo naqsado kow saddex jeer buu oran jiray astaghfirullah di wardigaagu u bato deganaanshiyaha badanaya bal ee dadkan warwarka iyo qalaq ku dhaco uu ka tagaya warwarkiyo qalaqa badani uu ka tagaya hadduu dikrigaagu badan yahay adigoo soo jeeda haddaad dikriyayso sawgeed buu nabigu wuxuu tilmaamayaa ninka ilaahay xusa iyo ninka aan xusinin mathalu lxayi walmayit bay la mid yihiin buu nabigu leeyahy qof dhintiyo qof nool faraqa u dhexeeya intuu leegyahay dulmi ha gelin dulmiga laba qayb waaye midna waxaa waaye mida ilaahay ka gashi dembi aa gashi ilaahay ka gashi waaye midna waxaa waaye ibni aadana ka gashka ibni aadanka galaysa naftirkiisa ilaaha ku caasinaysa because ilaahay kuma amrin qofkan inaas masuu ku diiday dembiga ilaahay ka gashay anytime ma u toobad keeni kartaa bal ilaahay waxaa laga yaabaa aakhira inuu ku cafi lana magaciisa waxaa kamid al-ghaffar kamid ghafuur kamid rahiim kamid rahmaan kamid tawaab kamid wuxuu nabigu yiri ninka markuu suuqa galayo yiraahda حديث ابن ماجه الباني حسن كشجي نك مركز سوق قال يا هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير انت ويرد عنك إلى هذا مركز سوق قال كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة كن برتا حديثك بيوه هدي تابتان دحل بي قريبان بيوه قلبك بني آدم كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلينا يا وحنا ديقيس قلبك سامين يا وحنا ديقيسيس قلبك سامين يا وحنا تقوى ليس قلبك سامين يا وحنا تكفكريس قلبك سامين يا وأفرت قصة وضوء قلبك بني آدم كسعوتوين أفرتاس شابات القلب
maalin kasta 17 ragcadoodba waad akhridaa waajibka haddaan sunnaba tukan 17 kaba ilaahay baad baryaysaa foodaad dhulka ku haysaa oo waxaad leedahay ilaahu jidkii nebiyadana ay mari jidka gaaladu martayna hay marinin baad leedahay albaabka masaajidka markaad ka baxdana jidkoodaad qaadaysaa waxbaa qaldan markaas oo maaha waxbaa qaldan ama salaadan baan la fahmin ama jidkan baa loo haystaaba dee jidkii muslimka inuu yahay walidaalika ilaahay qur-aanka wuxuu ku waxa layna baray oo nabigu ina baray calayhi salaatu wasalaam salaada markaynu tukanno waxa koowaad aynu qabanaa waa maxay nabi maxamed markuu salaamo naqsado kow 3 jeer buu odhan jiray astaghfirullah astaghfirullah nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisa faatima markuu cali uu dhisayay ayagoo masjidka ka soo wada baxo isgarab socdo nabigu ku yidhi cali ka warran faatima haddaan kuu dhiso markaa buu sii jeesto uu ka xishooday faatima waan ku siiyey buu yidhi caroosna waa taysa soo diyaari buu ka yidhi uu socday inantiisii buu nabigu u tegay faatima aabbo waan ku dhisay de yaad ii dhistay cali baan ku dhisay radia allaahu canha way aamustay way xishootay qofku laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah markuu yidhaahdo laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin ila allah waxaad qirtay cid dhab loo caabuda oo cibaadadiisu ay xaq tahay inaanu jirin alle mooyaane subxaana wa tacaala maxaa kuu daliila inaad masaladan qirtay waa masale caqadiya qalbiga degta waxaa daliila foodaad dhulka ku haysaa assalaa macnaheed waxa weeyaan inaad kibir meel iska dhigtay halkii kuugu qaalisanayd ayaad dhulka dhigaysa addoonsigu waa qofka mu'minkii rabbigii buu ishortaagaa isagoo u khushuucay dunida يعني markaad adigu dadka wax u noqoto ee dadkii wax ku ahaayo dhan aad weydo waxaad garanaysaa halkay kaaga horeeyaan waxaad ogtay dadkoo dhan inuu halkan u socdo dan waxay tahay inaynu wada diyaar garowno waxay tahay inaynu aakhiro u diyaar garowno oo ugu diyaar garowno maxay camal saalixa iyo iimaan dhaba fartaydan ishaydoo dhan way qarin kartaa haddii se la durkiyo way libdhaysaa adduunka inuu isku soo dhoweynay dabeetana noloshaba waynaga qariyay ma arki karaysid ilaa meersadiiska iyo mushaharka badan iyo waxaa mooyaane wax kale arki kari maysid walidalik buu taarikhyahankii greeg ahaa plutark wuxuu leeyahay qad wujidat fi taariikhi mudunun bilaa xusuud wa mudunun bilaa qusuur